keligaa baad ahayd goortaa rabtaad bixi jirtay cuntada rabtaad cuni jirtay ciddaa rabtaad la socon jirtay facebookaa rabtaad daawan jirtay tiktokaa rabtaad geli jirtay hadda shaksi kala kugu soo biiray haddaadan isbedelaynin guur diyaar uma tiid horta buugga kani waa buug aan dhihi karo diinteenii suubanayd iyo axaadiistii uu rasuulka ka hadlay ayuu daba socdaa marka guurka waxyaalaha lagu tilmaamo ama waxa looga hadlo oo buuggan xalay markaan arkay la ii saxeexay runtii aan akhriyay xalay oo dhan baan soo jeedayo mubaarak wuxuuna dhexgeliyay bad kale waan akhrinay waxaan arkay wax badan uu ka qoray buuggan ee ku saabsan guurka marka guurku waa wax aan la heli karin buuggan wuxuu daba socdaa ama uu ka sheekeynaa waa wixii diinta ka sheekaysay marka waa buug horta qaali ah aan la heli karin waxaan uga mahadcelinayaa juhdiga uu geliyey faraha badan wax uu soo bandhigay wax la siisan kara ma wax yaraysan maaha wana buug faa'iido u leh ma aha bis guurka kaliya nolosha ayuu faa'iido u yahay dan guurku waa nolol marka buugga aniga aad u yacjibiyay waxaan dhihi lahaa laga faa'iideysto fursad weyn bay noo tahay kulli ma wax akhrina wax weyn baan helaynaa buugga magaca uu sitana waa magac qaali ah garaadso intaadan guursan wax badan baa loo fasiri karaa wuxuun baa ku faa'iidaya dabcan marka wax akhriso hadaa wax akhrisana akhriyo kaliya maaha waxa fiican inaad fahanto hadaa fahantana waxa fiican inaad ku camal fasho اقرأ كبعد فهم كبعدنا وعمل فل تاسا أيضا روحد وحي إيمانيسا وحيات أخرسي إنا كفايدستي هداي بركي جوركي وحالات ديارو إبل سامسونج جري بلوتوث كم وحنا سكوت درا وحدي جري سيرجين فور ديفايس منا وحيال بدن ورادينا منا دقيقة وقانا وحيال بدن رادين لكن بوجا مكا أخرسيد أير دروب واي منها هملو سوق في سنة taas kaftana damees kaga tago waxaa rabaa wax walba horta wanaagsan waxay leeyihiin bila sharaf ama hadiyad walaalkay mubaarak haadi arday badan oo buwaagta qaateen oo ay ka mid yihiin dadkii qalinjibiyey iyo dadka hadda joogaba ay ka mid yihiin dardaarna ii soo direen oo ah in magaca guud ee ardayda ina abaalmarin aan ku siino waxaa codsan lahaa inuu halkan yimaado aad oo mahadsantahay saaxiib كتاب كان صدح شير بن أخي أنا حاس كما صدح شير بن رميني أنا قضب بنسي قرتي وحاري نين والبقى حاصلة أو ماشى فردية وإنه لما كتاب قاطع وإن هذا أدونا أضمن من أخريده أيضا من أخريده كدي من أسكوتي ما دانو نكا ويجدي وحين أفر بقادر يا ويجدي وحين أفر بقادر يا ويكتب من مركة ما شاء الله قريو كمان مر إنه وح أقريه نينك يحاس كيسة كتاب مهم مركز صوق هذا يصلب على قدقة كتاب كان هذا مصور نقطه أبواب تان عجائب كالليابي صفحة اللباتن يسقالات مركو فصير يهن لباس لكم وأنتم لباس لهن مفسر يا أيدي مقريو لكن معناه اللي بكينيا أعجبني والله عبارة عجيبة اللباس دركم محوك وفيدي يبني درك مرقبو كاعلية مركو ليلكو كاعلية مرو حيري واتكو حرقوتا مرو حيري واتكو فانتا مربا انتا بعد دوام محي حاسك أبونا والنوع عاوي يعني نينك يحاسبه تصالح عبارة عجيبة سيدو كلا وحي عجبيي صفحة سيديتنات اسبرو انت هذا مبرن حيري قبلنا أضربت إنا براتو انت هذا برانين هرت أدوكو ماتا هرت أدو اسبرو runtii baabkaana baab aad ii cajibiyo haani xaaska markaan akhrinaan dib isoo fiirinay taasna mid bay ahayd midda ayadana aan leeyahay safxada 115 kala duwanaanta ragga iyo dumarka ficlan waxa ugu badan oo dhalinyaradu isla fahmi laayihiin ama reeru waa in la garan waayo in la kala duwan yahay qofku uu doonayo qaab fikirkiisu inuu yahay mid laakiin gabadhuna qaab fikirkeeduna ay tahay mid in la kala duwanaado ayadana waa qodob muhiim ah صفحة الصدن إيا أفر أيضو وابا إن لغو اعتكافا شان قضب وشيخ سيوغوري لكن صدح قضب إذا كتو سارين يا قضب كوبادو حويري حدادا شان الرمو ديارو أهين قور ديارو متي
قبل يقول المقلة باب كأخرية صفحة صدني أفر هذا مرقد قدتان هذا صار صفحة صدني أفر شن الرمود هذا ديارون هاي جور ديارو متيد صدق بانك سوق هذا كوكبات وحولي استبدل هذا ديارو هاي جور ديارو متيد كل جاب هذا هاي قرط رتب بيحي شفتي أنت رتب عني شفتي عدة رتب لسعون شفتي فيسبوك رتب داود شفتي تيك توك رتب جلي شفتي هذا شخص كذا هو صغير هذا isbedelaynin guur diyaar uma tiid qodobka labaad wuxuu yiri dulduleeladaada iyo cilalkaaga hadaadan diyaar u ahayn inaad daawayso guur diyaar uma tiid qodobka saddexaad wuxuu yiri hadaadan mas'uuliyad inaad qaado aadan diyaar u ahayn guur diyaar uma tiid hada halkaas aadaysan insha Allah waxaan ku gabagabaynayaa safxada 66 safxada 66 sheekhu wuxuu kaga hadlay kaatibku wuxuu kaga hadlay سؤال مهم أو عجائبة أو قابك الله شيء سنايا وحب هي سؤال مهمة أو هاساوها قابك الله هاساوه أو الله شيء كيسو هذا ما أنت إنك هاساوها بقول كيف أنت وما بيرك يا حنون يا وسيحن الله هاي وانقل قالنا يا وانقول رياضي وحاصل حقو دقيا ريالتي حقيقك على الله يا جود أهان كتابكو لما هالله أو كليئة دت كان ولي جورسلين كتابك وحول خطابة يا حتى دت كريرة عليه الدنيا متاع وخير متاعها امرأة صالحة إله ما عز جل جلاله حمد يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه بعد حمد الله وحاربنا أمهد عليه شيخنا قالك أهرمتي مبارك هادي magaciisa bi ajabi runtii awal mar aan maqlo magaca wiligay kitaab af Soomaali ku qoran inaan dhameystirto go'aankeeda ma gaarin maanta ka hor marka insha Allah taala dhalinyarada marka hal kalimaan leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam dardaarmay ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj dhaqaala la'aan guur loogama haro tawakkal ala Allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan helno raggu inta badan ama culimadu way ka hadlaan guurka way ka sheekeeyaan laakiin qof dhalinyaro ah mucaasir ah yani xilligan jooga fahmaya dhalinyarada iyo waaqaca nimka taagan hooyada aabaha awowga uma baahna in kana noloshooda jadiidiso hooyo aabo hooyo waa ku jeclay ku dhig hooyo aabo waa ku jeclay ku dhig maanta min ka yeelayeen hadday israahdeen way israahdeen haddana orana kaama aqbalayaan laakiin inta imika dhalinyarada ah baa u baahan nolol fiican oo qurux badan oo tii waalidkood helan iyo tu kasii qurux badan ah marka inaan helno mubaarak iyo mubaaragyo badan baan mubaarak waxaan u leeyahay anu istaajilay waxaan leeyahay thank you waad mahadsan tahay jazaakallahu khayran waghfara lahu dhanbak ilaahay ku dambi dhaafo buugaagna Allah kaaga dhigo mid samada laga raali lagaga noqdo oo laga xaadiriyo cilmiga naafica lagu daro insha Allah run ahaantii waxaynu u baahanahay maanta waxay Soomaalidu tiraahdaa guurku waa guri madow oo gelisid bay yiraahdaan ama waa god madow oo gacanta gelinaysid si aanad god madow aanad gacanta u gelin waxaad u baahantahay iftiin iyo toosh aad ku iftiisid iftiinka tooshka aad ku iftiisan lahayd waa buuga al-ilmu nuur waxaad helaysaa tabooyin iyo talaabooyin ku tusinaya qaabka u dooran lahayd qofka nolosha kugu haboon qaabka xataa kaliya tamaha adiga qofka kugu haboon qofka adiguna ku haboon tahay inaad labadiinuba isku haboontiin wuxuu ku siinayaa tabooyin iyo tusaalooyin aan waxaan akhriyaa Istanbul oo ka sheegay maalintii dhaweedeen joognay buugaag aad u badan baan akhriyaa marka buugan qof aniga ila mid ah oo sidoo mubaarak ila mid yahay ila diina ila dhaqana ila aragtiya ila afa sidoo wax badan ila wadaagayo hadan luuqada kala ku akhriyo kuma heli karayo wuxuu kula noolaanayaa buugan noloshada adigu nooshahay maanta hadaad xagan ku nooshahay hadaad wadankii ku nooshahay iyo hadaad meel kasta ku nooshahay ayuu kula noolaanaya marka waxaan oran lahaa dhamaantina ka wada faa'iideysano aad baad u mahadsantihiin oo ilaahay baa mahad iska leh marka labaad idinka idin mahad celinaya reeran kara runtii wax badan oo ilaahdo igu maali wax badan baa la yiri sidaan buuga anigu aan u sharxi lahaa u gadi lahaa runtii waa fikrad anigu aan xambaarsanahay waqti dheer aan qorayay 2011 baa waxaan qoray maqaal la yiraahdo garaasintaada gursan 2 sano uma reer lahaa markaa
muddo bil gudaheeda 35,000 oo click baa ku dhacday maqaalka bariga dadna waxa laga codsaday inaan kitaab inaan ka dhigo waxa li 16 bog weeye inta kala dhamaystir 100 bog nooga dhig laakiin way cuntami weyday waqtiga aniga khibradayda marka loo eego aqoontuna marka aan dhex galay way aragnimo la'aan way cuntami weyday 10 sano kadib ayaan buugan qoray haddaad weydo buugga adigu aad doonaysaa saaxada ka weydo adigu kugu jiraayo qor marka buugga markaan waxaan arkay hagii gurdoonkana si gooniyan u arkay buuggii lamaanaha la hadlayna si gooniyan u arkay laakiin waxaan way buug kulminaya walidaalika labada qaybood baa ku kulmiyay 13 cutub baa buugga ka kooban yahay 7 cutub ee hore waa hagaa gurdoonka cutubyo badan baa ku jira oo runtii muhiim ah ka mid tahay hadafka xasaawaha halbeega doorashada barayntaadan horta adigu aadan qofka la asaawaysa aadan baran oo ma ogaan karaysid baahiyahaaga qiyamkaaga waxa aad ku liidato qiimahaaga waxa aad ku wanaagsan tahay himilooyinkaaga nololeed maanta dadku himilooyin baan wada leeyahay bariga hore himilooyin soo koobnay himilooyin badan ma jirin nolosha barigii hore laakiin maanta himilooyin baa leeyahay buuro la adeeg qofan kula fahmeen maanta dad noloshaada ku soo biiriso caqabad buu kugu noqonaya riyadaada hadaadan is baran baahiyaaga aadan aqoon la baahi lagu qof walba baahi waa kala duwan walow ay jiraan rag baahiyo gaar ah oo buuga ku jira oo qaybo kamid ah inada tilmaantay gabdhuuna baahiyo gaar ah oo ay wadaagaan ay jiro oo dabciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray haddana qiimkooda kala duwan iimaheena kala duwan qof walba iimuu leeyahay sheekh xiran Ilaahay soo daayay Aid al-Qarni Salman al-Awda ayaa bari wuxuu yiri dhalinyarada kelmad siiyay tababar marka waxaan ku yiri qof walba waxaad qortaa iimahaaga tan wuxuu yiri wiilasha kamida meesha fadhiyay ayaa harkaysa waxba qorin kasaan ku yiri maxaad adigu iimahaaga u qoray wuxuu yiri anigu iimaha mali kasirana ku bilaabay qaniyo qad soo qaado qana ku bilaabay ceebahaaga ceebta ugu horeysa waxa weey iimahaaga ma taqaan ko halka ka wadbay waxaan uga jeedaa qof walba iimu leeyahay ama ugu ama uga kuwa lagu xanto kuwa lagu sheego kuwa badan ka qarsoon baa jira waxa ku jira cutubka bara naftaada inta waxa intaas waxaan marayaa cutub yar baan ka sheekeynaya baro naftaada horta inta qofka baran cutub fara badan baa ku jira qaybta dambena waa 6 cutub ay ka kooban tahay 6 cutub runtii waa cutubyo aan isleeyahay muhiim maraaxisha guurka maraaxil buu maraa sida nolosha maraaxil oo marto qofku dhasho xabadka ku socdo siqo gurgurtay kacakuf orod dhalinyaranimo maraaxisha aad aragtay mid lamida ayuu guurka maraa 5 marxaladood guurka maraa buu ku jira marxalad walba waxay leedahay mashaakil marxaladda saddexaad oo kale marxaladda hirdanka guurka daraasaadku waxay tilmaamaan 70% furitaanku inuu dhaco marka qofka hadaan sii ogeyn marxaladdaas inay ku soo socoto sidoo uga bixi lahaana aad ogaan waxa dhici karaysa mushkiladda inay gabadhii iyo wiilkii ugu kala tagaan waxa kamid ah sheekhu sii sheegay kala duwanaanta meelaha ugu dadku xidhaayeen inta badan wallahi qof nolosha isfahankaasi wuxuu ka bilaabmaa meelo ka bilaabmaa waxa kamid ah kala duwanaanta labkii dhadiga la ogaado waa caalam dhaweeya qaab fikirkeed ku kala duwantiin qaab hadalkeed ku kala duwantiin dareenka sida loo cabiraad ku kala duwantiin baahiyaad ku kala duwantiin mashaakisha sida loo xalliyo ku kala duwantiin مثل يراجع تصالي أو كوبنا نقول قبل واحد جالس هيدا مشاكل مركب وجرو أي عرقته إنه عبرته نقول وجعله استوديو من وحنيه